aaway dadkii dhahay Nasri Warsame doorasho laga reebo laga guuleysto umada beenta u sheegay bal halkaan ila daawada الله يا سلطان محمود وعلى كاهية maanta halkee joogta maanta waxaan joognaa meeshii lagu foodahayay yaa u codeysay waxaan u foodnay Nasri Warsame doorashadaani maxay noqotay doorashadaani waa doorasho aad iyo aad muhiim noogu ah in Nasri Warsame loo foodo waa nin dhalinyaro oo Soomaali ah oo firfircoon oo jaaliyadaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeedna isku mid ay u tahay dadka media ayadoo boqolaal kun oo Soomaaliya ku tixan tahay beenta caadaystay in ummadda u sheegaan oo kaamiradaha inta iska daartaan waxay doonaan ku hadlay miyaad rumaysanaysaa adiga daawanaya mise wasaaradda rumaysanaysaa oo cadeymo kula wadaagtay in doorashadii socoto 7 bisha ku eg tahay sabti axad la codeynayo kula wadaagayso cadeymo ku keentay miyaa rumaysanay mise kuwa u bareeray in ummadda beenta u sheegaan oo media la soo fariistay Nasri Warsame laga guuleystay doorasho laga reebay waa haray ayadoo cadaan iyo madow aan loo kala harin ee cadaanka iyo Soomaalidiiba codeynayaan beenta u bareeray miyaa rumaysanaysaa iska daa beentooda waxa ku falin haddaad joogto xaafadaas laga codeynayo wasaaraddu waxay ka codsanaysaa guushaas waa guul Soomaaliyeed adaa leh dadka Soomaaliyeed leh wax ku yeelo oo coday maanta codkaaga loo baahan yahay adiga sababtoo ah meesha joogta walaalow u coday walaalka waa guul Soomaaliyeed Nasri aniga Soomaalnimo wadaagna waan taageersanahay Soomaaliya oo taageersan yihiin war adduunku daarood iyo hawiye iyo qabiil nooma yaqaanay Soomaaliya noo yaqaana Soomaali kursigaana Nasri Warsame u tartamayo Soomaali ah Soomaali kale la tartamaya oo aad uga codeyso uga hilisaana maanta ma jiro asaga u tartamaya asaga u coday asaga u hili walaalka u codeysa waxba ma ka doonayso runta qaado waxa weey adduunku qabiil nooma yaqaano daarood iyo hawiye anaga isku naqaana maahan iyo digili mirfleye nooma yaqaanaan adduunku Soomaaliya yaqaanin calankeena Soomaaliga yaqaanin yaa tahay Soomaali yaa u dhalatay dhalasho ahaan Soomaali taasa adduunku yaqaana adigu Soomaali baa tahay waxa joogta xaafada la rabo in laga codeeyo joogta walaalow u coday Nasri Warsame dadka banaanka joogay meelaha ka qayla dhaaminayo umada beenta u sheegay warkooda xagga iska dhig war beentii waxay gaartay xitaa CK oo Mareykanka joogay in la yiraahdo CK waa la tarxiilay waana been cad oo loo bareeray Mareykanku jooga adigu hadda joogto ina aragta waa macquul hadda raadisana waa arkaysa wax ka jira mal waxa meelaha la aqrinayo la dhodoobahay waxa kama jiraan runta qaado codeynta Nasri Warsame waa socotaa 7 bisha ku eg tahay sabti axad waa la codeynayaa walaalow hadda xaafada uu ka tartamayo joogto waxaan ka codsanaynaa ina meesha tagto walaalka u codeyso oo kursiga oo kursi Soomaali noqdo haduu maanta walaalka ku soo baxay birina walaal kale Soomaaliyeed ku soo baxay waxaan ka codsanayaa kursigaas walaalka ina ku fariisiso oo qayb ka noqoto guusha qayb ku yeelato dadka kale warkooda iska daa Nasri Warsame dadku waa u siman yihiin wax u kala soocan male waxa weey walaalka waaye ha ku fariista asaga aftaqaan asaga wartaqaan asaga Soomaali kula oo kugu dhiiga Soomaalinimo loo baahan yahay Nasri Warsame waa guuleystay dadka Soomaaliyeed u codeynaya cadaanka u codeynaya guushana asaga iskale kursigaasna waxa weey Soomaali ba lagu matalayaa walaalkeena Soomaaliyeed ku fariisanaya waxa weey dabaaldega bisaaray guushayn Ilaahay noo xaqiijiyo ayaa Ilaahay ka codsanaynaa aduguna qayb ka qaado waxa weey dhiirigelin walaalka